da'doodu ay ka yar tahay 15 sano dabcan isboortigu wuxuu ku soo dhex jiray muddo dheer caawa waxay heer qaran iyo shaqooyinkii ugu dambeeyay ee uu qabtay waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka ciyaaraha ee TV-ga ku soo dhawow barnaamijka macluumo ما صرت والسلامة macallin xasan xuseen kulmiye dabcan waxaa ka mid tahay ciyaartooydii u soo ciyaaray kooxihii ugu caansanaa dalkeena soona matalay xulka qaranka dalka hooyo marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qof walba horta isboorti ah meel unbuu ka soo galaa taariikhdaada isboorti oo kooban inaad nala wadaagto markii hore waxaan ka ciyaar jiray meel yaraha suuqa xoolaan ku ciyaar jiray anagoo yaryara kadib waxaan naqanay koox la yidhaha 15 May waa garta oo u dhiishay oo Serie B ahayd 15 May waxaan naqanay qolada labaad aan naqanay kabacdi waxaan naqatay batroolka waa garta batroolka aan u ciyaaray commission dirtay batroolka markii dekada ciyaaray dekada ayaa maalintaas si fiican u ciyaaray markaas la qaatay dekada waa garta kadibna kadibna waxaan tagay fiyaad waga marka ciyaaryahanka uu yaryahay oo degmooyin ama kooxo xaafadeed uu ciyaarayo waxaa jira dad soo arka oo talentigiisa iyo xirfadiisa akhriya isla markaana eega in ciyaaryahankan uu noqon karo ciyaaryahan mustaqbal leh marka qofka ugu horeeyay ee ku arkay adigoo ka ciyaaraya xaafadaha kuma aha ma xasuustaa waxa macalinka عمر عنجس حسن قرني وديجي labada waa dhintay Allah yarxamo markaas ay soo arkay markaas ay wadare maartay kooxaha markaas dekada la arintay dekada xasan waxa Umar عنجس sababtay Umar عنجس markii laba sano ka ciyaar waa ka baxay fiyadan galay waa gartay ilaa waxaan ciyaaray 78 marka dabcan fiyaad waxay ka mid ahayd kooxihii waaweyn ee dalka hadda wagada lahayd markaas laakiin markaan ciyaaray fiyaad lahayd marka dhalinyaro badan aan isla joognaa مع جمعالي بنجم كتيم البس ايوب شريف كرامه مثل عبد الديار dhalinyaro badan oo مثلا نوراني hadda iyo Saciid Darmaan dad badan oo soo ciyaaray markii kooxdii kugu horeysay ee heerka koowaad aad ku beertay la qabsigaaga garoonka sidoo ahaa horena ciyaartooyda marka cusub yihiin kama helaan line up ama ciyaartooyda doqo koowaad marka marka timid ilaa iyo ilaa mas'uuliyiin lama fariisanayo waa gartay waxaan ka ciyaari karay saddex oo horeyso mar ilaa ma ka ciyaari jiray marka asoo midig xataa marka uu ilaa ka ciyaaro marka baran cusub dadka intooda badan ayagoo madaxa uu ilaa taawulta waa gartay marka ilaa ma ka ciyaari jiray ilaa marnaa ilaa barsana inta ma ka ciyaari jiray sifa marka ma jiraan guulo la taaban karo aad la gaarto kooxaha aad ciyaaraysa jirtaan guulo badan gaaray oo fiyaad ciyaarayay على مدى سنين كسب بحاي مركي أنا عيال ممكن أقول ولو ألف فربنا قالوا أنا كوح وعدل وبقوا هذا الله تعالى أدعو على الرسول ciyaarihii hore ee barasamaadkii kooxaha aad bay u xifaaltami jireen waxaana jira kulamo taariikhda galay maxaa ka xasuustaa kulankii kugu adkaa ama kugu xiisaab badnaa ee kooxdaada wagad aad koox kale ka hor timaado waxay ahayd horseeda ahayd galabtii ay igu xumaad waxay horseeda la dheelaynin iskood ninayna oo saxabkay ayaa rigoor u galay goolaan ka dhalinay marka ciyaarta waxaa ka hirtay 3 daqiiqo 4 daqiiqo dadku waa baxeen hal ibreen ahayd hal ibreen dadku waa baxeen waa gartay waxay isdheheen maaragtay bas waa laga raafiyay horseed waa gartay adiga waxay ku dhamaatay 3 gool oo laga dhigay waxaan 3 minuut iyadoo ciyaarta 3 daqiiqo kaliya hirma tahay 3 daqiiqo marka waa gartay hal guri dad fiican haysan kuwa عايشة انت افريقيا ايش عبد السعيد قال يقول لكم على التلفزيون حتى لما تكتب التلفزيون ninkaas oo kale ma ninkaas iyo ragaas oo aad u xubnaay waa gartay laakiin anaga waa naga baran jiray maxaa yeelay antar ayaa wuxuu ka dhigay goolkii oo maartay ayuu laga badan oo aan bidka jabiyay oo ka dhigay waa gartay waa gartay dhanka guuldarooyinka maxaa xasuustaa maxaa la dhanka guulaha tan waxay ahayd guul daro oo warsada kala kulanteen guulaha waxaa soo inta badan waa badan jirnay si fiican aad u fiican waxaan ka badan jirnay shiibi waa ka badan jirnay
waxaa khatarta weliba waa ka badan anaga baqi jira anaga qolada ciyaarino waa qolada aad nooga ciyaartooy oo haddana kulligood jaamiciyiin iyo haddana oo buloni hub u dheeraanay lacag iyo waxaas u leeyahay saasaan u leeyahay waa gartay barisamaadkii ciyaartooydii ugu caansanaa dalka oo ugu khatarta badnaa yaa ka xusi kartaa aniga ugu khatarsanaa waxaan u haystaa markaa سعيد عشان عفيف كلو صدق سنة سنة كعير قبل سنة كعير وبخيرنا كتيم بقى لنجم ضد أو حد أو عاد مش أنا أيوب ضد أو شوف عن برنا أقول لك أنا بشير جاي ضد أو معناتي شوف عن برنا أقول لك أنت أنا حسوس أنا معناتي هذا وقت هو ده حسوس أنا هذا ما معناتي أنت ما أدري صاحب هذا قرتي ان ما جرى كوب اكل غوليستا كوخدا وقت واجي هل جرى داوود كل جيس كوريال بقاد هاي العمل ايضا ما فسر وياه ان ما جرى كوخ كلا عيارت ويرك كودا واجي كده قبل لكن كده دبع ساين بدن كما لهين سوما كوب ما قاد لكن كده عيارتو في عرج وسلاسين اول الجورج اخترع عملية عيارتوي عادوا في حرج عيارتوydii hore degdeg nidaam ka ilaa طبعا اخترع شيء عيارتوydii hore iyo kooxii hore ee dalka maxaa isleedahay kaga duwan yihiin kooxaha hadda ciyaaraya ciyaartooyda hadda ciyaarta wax badan oo duwan ciyaartooydii hore waxay ahaayeen ciyaartooy yaaqin sababtoo ah ninkii rabo inuu boos qaato يعني مثل ما مستوى كعيار أنا سعيد على عمل هذا مثل ما نحن كعيار خفيف عمل هذا مثل هذا مسيج جاي عمل هذا ثلاثين عمل هذا مركز هذا حواي مركز أو بربر كلا عين قد تقفل ما معناته رجع صحيح أنا ما كنت آخر كم كنت ثالث أو هذا ما بقول سعيد على الوقت الجناتين كلها معاني أنا وهاي ما قال اللي السكر رفض الاختبارات الشدة وحنا سنة أي وين أنا بكل يوم أنا أولي بسير عيال اللي يحري أنت صار بحي قرك على جمعة هذا أولي سير حلو أنا الشريف نقول يجي الشريف كنا عود أنتوا برديش كعيرج لودين صدق شو هاي قولكم بردنا عيال نقص مركز صوتك كانت إني ذكر سير هذا النقل يعني قرك اللي تكون يرى معي هاي قرف أنا ما بدنا أركين أنا ما عرفت برايت فيوتشر ضد فيوتشر في عمل أو حتى لو جس لما قلنا إن قرك راعي معلمين تغار ساسة هاي في عن من يروح عن إلى يجي عن فؤاد جين يجي وصف على بلون يجي أصحاب وأسوي هاي مثلا إن طبعا ciyaartooyda marka ciyaarayso oo garoonka ay ku jirto waxa ka dhaca qaladaad mararka qaarkood waxa soo saar qaladaad aad leedahay waa ka shalaysaa oo aad sameysay marka ciyaaryahan ahayd qaladaadkii ma badneen inkastoo hadko af maana wax oo gacan ugu jiro ciyaartooyda roosaha badan ima ahayn ma ahayn hal roosaan qaatinin oo saaxiib aan saaxiibkii waxa aan u qaatay waa gartay waxaa ii sheegtay inay ahayd weerar oo aad ka mid ahayd ciyaartooyda weerarka ciyaarta waxaa jiri kara caqabado aad kala kulanto daafacyada marka ma jiraan daafacyo aad ka baqi jirtay markay ka hor yimaadaan دفاعي وبدل ما أقول على نقول يجي اسمه حاجة سكوت وهاي ضد حاجة بروني أخذي واحد صيف عن ومرك يجي شريف عبيد يجي عشان تكدي لها دفاعي أكتر عايز وقرتي مركا ودفاعية كبغ جرتي وقرتي إن سواء كله قرنك ما متشي أو هير قرن ما قرتي marka ugu horeysa qaranka lagu magacaabay ma xasuustaa marka ku sheegay todobaadkan adoo wasiir aan noqon sana mar labaad ay kaasto waxaan ciyaar badan marka imisa jara ciyaartooyda xulka qaranka soo muuqatay hal mar laba goor oo ciyaarteen tartanka ما قرتي إن وحيابي حساب إن هير قرن أكو حسوس معك كميدا هير قرن وحكي عشان حياة بدر مرة يعني
waxa markasta oo la dilay anaga intayna badan oo waliba aan problemka aan qabno hadda waxa waaye dadka waxay ahaayeen maaragtay in dad oo akademiga maaragtay ama maaragtay soo bilaabo banana hoos ka soo bilaabo ma ay ahayn magalas waa gartay waxaa laga yaabaa laacibku wuxuu saddex afar ciyaar inuu maaragtay iska fadhiisto waa gartay si fiican marka waxa waaye markii la yiraahdo saaxiibada oo la xasuusto dhalinyarada laga xasuusto aan ka xasuusto waxa waaye dad oo u qalbo kubadda cagta oo wanaagsan ahaan laakiin inkastoo aan ahayn academic waxaa la rabaa hadda adduunyada waxay noqotay academic inuu ninka oo soo yar oo barada soo bilaabo lagu soo barbaariyo markuu weynaado maaragtay uu mataqaana haddana oo arki karo inuu maaragtay uu yahay ninkan alif ninka soo bilaabo laakiin hadda aan laacib oo suuqa mara aad ka soo qabsato historygiisa ma ogi waxa uu yahay ma garan kartid xagga technikiisa ma ogid inuu laba goor arkaysaa waxaa laga yaabaa laba goor waa fiicnaan kartaa asa toban goor xumaan kartaa marka waxaa la rabaa ninka inuu basically uu dhisan yahay ayaa loo baahan yahay waa gartay waxaa ii sheegtay inaad wadato dhowr shahaado oo caalami ah oo aad soo bartay isboortiga isboortiga meelo badan ka soo bartay waa gartay talyaani waa ka bartay covershano meel yiraan ka soo baxay Brazil in la yiraahdo Milan oo Frank Brazil ama ingiriiska waa ka qaato oo tafjo Bob Robson Douglas Eve meel yiraahdo Walthamstow ayaa ka qaatay Hungary waxaan ka soo qaatay afar bilood oo sport science Italia wata ku sheekay Covershano iyo Hungary iyo ingiriiska intaas baa wata inta markii waxaan galnay هذا convenant هذا وهو مكتب انتوا هنقول نسيان مثلا Somali Football Federation كورس نسيان وبيئة بيئة كبرى مصر انت سنستعين طبعا أخوان إسبورتي أو آد وين أم بلارنا هستا هذا كويديو إن وحاجة عيارتوي Soomaaliyeed أو كعيارتا قربها أو حتى كحواوين قرقات كصوب نقضي هذا نقدر كم حيس ويديان محا Soomaalida وديدي إن هير في أن إنجران أو magac iyo sumcad bay reebaan aniga Soomaalida oo qurbaha ku dhashay taa macalina u noqday oo waxaan ka ahay meel leeyahay ana Blues Proof ka ahay oo Leyton Orient leeyahay macalina u noqday oo yaryar Soomaalida xaq ka dhashay hobby u yeelan waa dad oo jecel laakiin tooda badan waxa waaye ninkii deelo wuxuu ku dadaalaa in uu meel weyn ka gaaro haddii mar la magacaabo hooyooyinka inta badan Soomaalida hadda waxay keeneen inay ilmahooda geeyaan meesha ay ku ilaaliyaan asoo 5 sano 6 sano jiro oo ku koro si uu banooni maaragtay markay banooni meesha uu sareyso oo la gaaro teeda kale Soomaalida waxay naga karaan Brazilka of Africa oo Brazilka naga karaan haddii ay gacan xoog helaan hadda waxaan ku mahad celinaynaa maaragtay Somali Federation Football inay hadda wax cusub ay bilaabeen oo dad badan oo mataqaan oo hadda arkeen in dibadda ay anfacayso dadkooda anfacayso hadda magaciisa gudoomiyaha kubadda cagta Cabdiqani aad ayuu maaragtay xoogiisa u saaray in oo Soomaaliya sare u qaado waxaan ku ahaaday Soomaaliya dadka god ka soo bixiyay kubadda cagta Soomaaliya ayuu ku jira maxaa yeelay magaalada wuxuu joogan ayagoo xabad ay ka dhacayso aniga ma aanan joogin marka waxa waaye nin dad raba hadda waxaan arkaa inuu isbedel fiican oo soo socdo hadda waxaan bilownay laba sano la socotaa malaha halkan Burundi ma shigaareen waxaan ku soo bilownay asaa iskool kale soo bilaabay marka iskoolka ninkiisa waxa la dhalashadiisii wixiisii iyo nin oo maaragtay meel loo raacay marka iskoolka markuu soo dhameeyay waa tag ma shigaareen waa aragtay hadda waxaan bilaabaynaa sistemaha soo socda insha Allah under 15 aan bilaabnaa si ay generation oo hal faro waa gartay macluumaadka ku noqdo su'aashii aan ku weydiiyay waxaa jirta ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo ka ciyaara Yurub qaarkood baa u ciyaaraan kooxo waaweyn hana noqdaan junior maxaa diiday in la helo ciyaaryahano Soomaaliyeed oo talent leh oo la tartama ciyaartooyda Yurub ka ciyaarta oo caan ka ah laba waxaad ma jiraan horta Soomaaliya waxa waaye xalkeeda waa la socotaa inka Soomaaliya markuu national team leedahay waxa waaye asagna muu joogo sababtoo ku joogo waxa waaye ama waxa loo haystaa ijaara loo haystaa ama waxa loo haystaa ama telefoon waxa soo keenan nimankaas waxa waa niman oo ka dhisan inta dhaqaalaha adduunyada u jeeda dhaqaalaha ka dhisan tahay
waxa waaye waxaad gaari kartaa marka nimankaas waxa waaye baloonigan waxa waaye laba tilaabo meeshaad qaata garoon ku yaal marka ninka hoob ka dhigto hadda aan garoon markaan rabo meelo ku ciyaar ma leh hadda magaalada aad waxa ka saarida ma sabab balooni ciyaar waxa ku ciyaaraan loo yar ku ciyaaraan marka waxa loo baahan yahay in ay helaan garoomo fiican ay helaan waxa hubaal ah tobanka sano soo socdo inay naga karaan dadku ugu khatarsan Soomaaliya ama tan Afrika haddii ay saan awoodo sida Cabdiqani oo saas loo wado iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay saas u wadaan waa bila shak xoogooda saaraan maxaa yeelay hadda garoonka oo istaadi oo Muqdisho waa la sameeyaa istaadi koon waa jirta istaadi kale oo ku taal meeshan oo controlka oo ku taal waa marka waxyaabo badan soo socda oo ballan qaada waxaa ii sheegtay inaad dhowr sano ku nooleed UK ama dalka Ingiriiska sababaha u timid maxaa ka mid ah sababaha wallahi horta marka aan kaga hadlo anigoo Dubai jooga aan waxaan ku arkay gudoomiyaha Cabdiqani aan dhahay maaragtay aan waxaan rabaa Soomaaliya ama shahaadooyinka sababta xamar imaawi marka aan dhigay waa shaqo geliyay aniga aad ciyaalkii waxay degan Ingiriiska laakiin aan inta deganaa sababta waxaan rabaa Soomaaliya in aan ka shaqeeyo oo wax aan aqaano aan ku biiriyo inta aan soo baranayo markii jaceelkii marka waxyaabo badan ana problem aan qabo markuu Cabdiqani arkay inaan problemaad tahay oo xoolaha xataa mashaakil oo family waxa ay qabtaan marka Soomaaliya inuu ku fiicnaaday waxaan noqday maaragtay stability arkay waa gartay markii aad qurbaha joogtay ma jirin dhaqaaqii sport oo ku jirtay marka laga soo tago waxbarashada iyo shahaadooyinka qaadatay waxyaabo badan ku jiray in la yiraahdo Cabdullaahi Hadiin iyo أكتر دليل بدر الصومال إسكان عبد الله غير أكتيف هذا وغدا جوجو هي الكير كاشنت السنة قبل الله نكاسنا شقيجنا سوري كل واحد هاي يشهد وقت وحسب ما يجري ويكندي أيام قبل جرنا أيام ما هو قبل جرنا مركز ساعات راه براي كل واحد ماشي بهذا لورش شبلان دليل وكمل حتى waxaan qabtay waxaan qabanay tournament aan qabanay marka aad ay u horaa marka dadkaas waxaaba la jiraba hadda waxay ogaadeen Soomaalida dadku waalidku waxay ogaadeen cilmiga sida daroogada wax looga celiyo inay soo wadaan ay keenaan ay lacag ka diibaan anigu waxa laga diibaa 5 baan amal laga diibaa weegi lagu keenaa adad macallin taad wax taqaan professional noqdo meesha ayalka inuu la soo keeno aad konton amal oo lacag laga qaado habarta ila socoto waa gartay dabcan shaqooyin badan aan socdo saa sheegtay oo xiriirka Soomaalida kubadda cagta uu qabto ma jiri karaan dhaliilo ay xiriirka lahaan karaan ama leeyihiin horta adduunyada qof aan dhaliilayn ma jirto adduunyada qof aan haddana taan kale Soomaaliya dhaqaale u baahan dad qofta wadaaya ila Soomaaliya wadaa oo madaxan kale kan aan wadaa horta aad weey ma min xalqa aad qaadani sifa laakiin aniga saan u arko markii hore iyo hadda isku jima ahan hadda waxaan ogaanay in aan dadkayna aan ka keensan karno Yurub asaga hadda waxa Cabdiqani Abdi Xajibuuti oo tagay dadkii soo casuum hadda dhalinyarada ayaan soo shaqaan gaartay asaga isu keen tiridaas asaga marka hadii aan ku sii dhaqaaqno macala aniga hadda amal haddaan tago isli haddaan tago aan tarsan wuxuu yiri ima isli dhalinyar ka diyaar isli waxaan ka diyaar karaa dhalinyar ka soo yar karaa oo qaranka afa xaga qaran laga sameyn karaa inta labada qaran Soomaaliya كيف أنا القادنا كيف أنا القادنا marka waxyaabaha hadda tlaa si fiican u shaqeynaa insha Allah waa gartaa hadda shaqooyinka aad wadaan oo aad ka wadaan ciyaartooyda da'da yar gaar ahaan 15 jirada maxaa intay marayaan hadda ku hore oo dhamaatay ciyaarta hore oo dhamaatay marka iskoolka la xiro ama iskoolka la furo ayaan aan wadnaa hadda waxaan sameynaynaa weegi 3 goor aan sameynaynaa iskoolaadka ciyaarayo selection baa la sameynayaa selection kaas dadkii Soomaaliya matali lahayd next 5 years if he's 15 هذا 5 years كده صدق or 20 عيار كده فرنش عن عيار كده واحد منه أساسا كفكروا إن هذا بركة ودومي أنا واحد إن صوماليا وحياة قفتا أما لا ده معلمين تالنت له إن ضد بدنا وحيس ودينيا إن عياره إسرائيل كوفك الدنيا ده أنا لا يارني زيمبابوي إن حوجا قرارات وقال معلم كحول كقرن كنكرين جانا بشير هايفود مركا ضدكو وحيس ودينيا miyaysan lahayn macallimiin talent leh oo xulka qaranka hogaamiya oo macallinkaasi ka midnaan lahaa waa fiiri horta fursadaha oo macallimiinta la siiyo aad bay u yartaa waa garta
macalinkaas shahaadoo watay aniga taan wato iyo intaan soo cayaaray iyo dadkii waxaa jooga macalin faryaraa joogo waxaa jooga macalin nuur amiinaa joogo dad dhalinyaro badanaa joogto laakiin waxaa la rabaa laacibka soomaaliga hadduusan ajnabi arkin ma kaa baqaya adiga يعني احترام جرو احترام جرو لكن الاجنبي والانجليزي كواد عبركو اركو يا هو اساس انه يقول دورتنا انا امالنا حديثك لكن dad badan oo qaba karo waa jira baan ku sheegay aniga asaga adoo gool horeyso ama ku iska jira ma garatay ciyaartii dhacday waxaan rabaa nin nationalista hadii ku dhacay ana waxa ma qabanay laakiin meesha aan gaarnay iyadoo 10 daqiiqo dhiman tahay in laba gool oo nala dhalay طبعا خير marka waxa waay oo overwhelmed على قضيه كده aan qaadan karin laakiin taas disney wala laakiin anagana waxa waay waxaan ku baranay waxa hadda qaladka hadaad ku barato aad ku barato okay macallimiinta Soomaalida waxa waay in la arko oo la baroobeeyo oo kalsooni la siiyo oo u baahan waxaan ka filaynaa in xilku badcagta ay sameeyay doonaan waa gartay dabcan aad daawatay labadii kulan ee Zimbabwe aynu la ciyaarnay oo Djibouti kaga adkaanay laakiin si dhib badan oo dariiq ay nooga baxsadeen oo Zimbabwe ciyaarta ka dhacday ay nooga adkaadeen qaladaadkii kulankaasi maxaa kamid ah waxaa qaladaadka kulanka maadaama ay horeyso waxa waaye hadii aad tahay macallin oo qatar oo aad la horeyso waxa la rabaa inuu ciyaaro half-time ka dambe kan oo la marnaanka inuu hore dhigto sida Leicester oo ciyaarayso kale koorna markay nagu helaan contribute aan ciyaarno sida goolka helnaba ha aniga waa ka horeyna magtay marka waxaa la rabaa adiga inaad waxaad xajin karto wax inaasha burin hadaan adiga haysan karin waxa waaye waa mushkil markaad waxa lagu bixiyay dad foore u bixiyay magal had 10 daqiiqo 3 daqiiqo 4 daqiiqo akhira marka waxa Leicester waa xasuustaa baadi ay hor ku haystay bas ya koorna markii lagu soo gudbo markii Chelsea amal ciyaaraan counter attack water ilaa kooxdana waa maqan tahay water drink water waxa uu macluumaysay inuu siiyada oo Bronigaas dhigo ninkan oo orod badan sifaa kulli ay soo noqdaan markaas hadana Conte isteen oo maartay si fiican u wariyaa marka waxa la rabaa dad yaalo badan hadda oo jooga jiro oo national team u baahan yahay oo aan dad badan ay arkeen national team hadda yar oo ciyaaro magaciisa waxa soo socdo ciyaaro waxa gacanta ka jooga magaciisa هذا كعيارة سيد كونتي كلو عيارة وأنا جامعي أكتر magaciisa ku soo xasuusto waa gartay ma idinka xiriirka inta macallimiintiina isku tagteen xiriirka ma kala hadasheen in macallimiinta Soomaaliyeed door muuqdo la siiyo oo waqti fiican ku filan la siiyo oo wax ay bedeli karaan maryaabo badan waa laga hadlay laakiin hadda isbedelka soo socdo dawlad maartay Yurub oo ku weyn waqti aan laacibin loo joogaan hadda xal keenay in la soo hadda waxaan ka rajaynaynaa in xiriirka badda cagta Soomaaliya oo garto in uu dadkiisa isticmaalo dadkiisa haduu isticmaalo waxa ay riyo ma qabto waqti ma shaleynaysa taasaan ka rajaynaa aan ka filaynaa inay maartay macallimiinta Soomaalida la tixgeliyo oo si fiican loo soo dhaweeyo oo macallin aan hadaan macallinka ay wardiyo u baahni macallin ajnabi doon wardiyo u baahan وقرأت قرش بدن وباهي أنا شخصي أهم ما لي ساجون العقلانة في شقيلة يعني سو عقلانة حتى في شقيلة مشاهدة مرة بكي ودن كيف أبدا وأنا كم مرة أنا حتى مشاهدة حتى سفعيت قليل على كل حال وحواي إلهي وحاك رجينا إن حديث كي نور أي تلابة أي قوات كذا سفي عن إنه وضان لكن وحاكو هاي صوماليا بروني وحكو ضمن جنوب أفريقيا الدليل هذا التالنت لكن فيزيكال كان بابا لكن هذا الفيزيكال بابا ما ضمنته هل أنا وانت جل هذا مش وارد ما كيلو يعني رونالدو عمر ذكر واحد صوب اللعبين ميسي واحد صوب اللعبين وصوب شصر صوب marka aniga waxaan rabnaa hadda under 15 aan wadnaa under 10 aan sameeyno marka aan kor u soo kacno eewal waxa way suuqa nin maray ala iska soo wadaa laba goor abcad ku arkay waa keenaysa laba goor ina jilib ku leeyahay hadana habeenkii markaan hadana waxa loo baahay nutrition oo qaadanaya laacibkii inuu laacibku oo faraxsan yahay satisfy laga dhigo oo hadii la xareeyo maanta iskuulkiisa loo qaado
waxyaabo badan asugaa marka in haddii aan u soo jeesano sida hadda oo jidka nooga bilaabay oo nooga bilaabay gudoomiyaha kubadda cagta waxay noqon doontaa insha allah wax oo horumar gaaraya insha allah hadda inta badan ciyaartoydii ciyaaraysay kulankii isreebka koobka adduunyada waxay ka yimaadeen dalka dibadiisa aadaan loo amaanay waxay soo bandhigeen mis leedahay waxaa la gaaray waqtigii ciyaartoyda hadda ciyaarta kuwa ka talanta fiican la raadin lahaa oo qurbaha laga baadgoobi lahaa waxaan ku hayaa aniga waxaan tigi meelo badan aan tigi horta jarmalka waa tigi holland waa tigi nimanka hadda la soo qaatay 200 oo ayagoo kala ah oo Soomaaliya ma jecla kubadda ma jecla laakiin hadday arkaan Soomaaliya waa in Afrika laga arkaa si aan professional u helno Afrika hadda ay koobka Afrika daacayato tiimka dawladda laga arkaa laakiin Afrika tii gaar la haddaan Afrika gaarno waxaan rabaa in dad badan laga qaado marka dadyaal badan ayaa jiro oo joogo dawladda oo mataqaana u baahan in loo yeero haddana ay is afgartaan 3 bilood 4 bilood isu joogaan magarta laakiin hadda hawlu waxaan sii dishay si fiican ugu badan mugta waxaan sii dishay ciyaalka hadda isma aqoon hadda laakiin waa isbarto waa gartay hadda horumarka isboorti ee dalka ka jira maxaa lagu tilmaami karaa waa approaching waa great waa wuxuu sameeyaa great hore u socda wali tobanka bilood sanadka dambe oo la soo dhaafay aad buu u socdaa wali waan ka soo kacnay Eritrea hataa naga horeysa hadda oga ama soo gaar darajada xoogaha si fiican kor u soo kacay marka waan ogyahay Afrikaanka waan ogyahay anaga dad oo laakiin waxaan waaye waxaan haysto si oo maaragtay dadkii hadda waa iska tilaabay yani ninkii waxa la xaqado almin soo kala wareeg alle dagaal ma jiro laakiin Soomaaliya hadda naadiyal xataa ay wax la siin Soomaaliya waa fiican tahay naadiyalkii wax badan la siin ay ciyaaraan hadda boqol si ama qadar laga dhigo laakiin waxa waaye haddii aan helayn 3 Soomaaliya isku daysataa 3 professional oo wiiga qaato 100 wiiga 100 qaato haddii akraayeen yani loo walba soo calan lahay oo dadaal lahay arkaas la mar marka waxa waaye nimankan la yiraahdo jarmalka aniga marka 2 sano jiro waxa la baraa shooting bas waxa laga bilaabaa barnaamijkiisa waxa laga bilaabaa shoot laga bilaabaa marka waxa la rabaa academic inuu ahaado qofka ma aha inuu yiraahdo nin oo weyn oo maartay oo dhar 20 jir oo ciyaaraha kulliga maartay oo ma dhisna waa soo hatta ma yaqaan techniques ma yaqaan waa ordi kaliya bas marka hadda we are in track good track ku jiro path good path ku jiro jidkaas aan saaranahay ilaahay waxa kala jeeyna oo waliba aan si fiican u raadino hatta dad badan oo macallimiinta hataa in la adeegsado oo dibadda loo adeegsado oo laacibiintaas ay soo saaraan ay keenaan tii loo sameeyo hataa maanta isbartiibada hadda waxay sameeyaan Brazil hadda fiiro nin kastoo dibadda ka ciyaaro 40 cunug oo masuulka ah 40 ciyaartoy oo soo saar haddii hore waddan magaray ay mushaarkooda oo meesha jibtaan ninka baasbar oo Brazil hadda hadday Soomaali ay shaqayso hadda waxa la ismaayo waxa baan la ismaayo safaan waan gartay hadda waxaa socda tartamo kala duwan sida tartanka degmooyinka waxa ay sheegtay in adoo Seer A noqon qaran lagu magacaabo ma suuragali kartaa in ciyaartoyda degmooyinka ciyaaraya iyagoo aan Seer A noqon qaran lagu daro sidoo kale ani hadda hadii ay laga qaadayo hadda nin aan arkay oo ciyaara hodan oo ciyaara la barteen iyo la bariyay Abdul Aziz waxa ciyaarnay la barsigiis وأنا على السيدة كذا. سفعان. لما كان صديق أو حرت السيو وعن قبائلنا ما تقبل في عن إنتهاء هاي. بورتير يالك كاركوت هذا ما أنت إسبرتير في السنة. بورتير والله حمرين هو هاي. حمرين. كحد ما لديه سمعت. هلوي. بورتير هلوي. بورتير هلوي الوحياة وسمعها وحوب هاي على ميتير وبايع. ولش علينا يروحوا عيارة أدبعوا وعاني وعاني ما قلت معلومة حقيقة إنها تكتب دور الدل هرت اللغة ما كويسة
ها أنا قدام بدن ku hadlaa waxaan ku hadlaa taa hadda ku hadlaayo kow waa gartay Carabi Italian and English waa gartay dabcan macallin tahay oo shahaadooyin kala duwan inaa qaadato ay sheegtay ma jiraan macallimiin ku dayato oo Yurub caanka ah لعل يعني جوزي مارينو ونيكول الفيديو نيكول اللي يراهو وهو واضح مرة هذه وهو بلقيني هذا دقة وسهام والله dadkaas waxay waay dad oo maaragtay xogaa commandi oo ku adag discipline xagga discipline Fangalo buruno xataa sanka uu ku wada ninka Fangalo kale hadduu qatar kasta yahay kuma ogolahay inuu maaragtay inuu darasay inuu element ka baaqdo ama uu laga baaqdo waxa soo isticmaalaya Mexico sabab Jan Rivera inuu dhijiro ka baaqday oo ka baaqday waxa ay elementada ma dollar ayas finaali عرفت حلو دي انا طلع حلو ninkaas ma walaal mid jaan jabara sifa waxa uu ayarsi weysaalay wuxuu ninka aan intii tan ma labaatan ka caaysa markaan marka haduu ardo garoonka ninka ku dhinto maxaan sameeyaa marka calaamad ma qabin weeg ma imaan sifa waa national team oo finaala qaranka u baahan yahay marka waxa la rabaa hatta macalinka in la siiyo full authority ani hadda itiraahdo dalsi marka laga badin ay qabsato aniga qarab wax sugan ma aniga waxaan lahay koob 10 lagu cayaara ama hano Soomaa hadaan rabo 10 ku cayaara laakiin ana natiijo ay rabtaa si fiican garoonka waxa lagu cayaara koob 10 hadaan rabo 10 ku cayaara oo bashay naadiyal badan saas ku hadlaan naadiyal badan waxa la rabaa inuu wiilal hablo cayaarsi hablo waqtiin hadalkeen ayaga ka badiyo ayaga macallin waa gartay dabcan UK ka timid waana mid ka mid ah dalalka ugu horumarsan kubadda cagta dhanka warbaahinta aad ay ugu dhisan yihiin ingiriiska horta yaa ka taageertaa kooxahan ingiriiska ani Leicester iyo lama kala yiraahdo Chelsea waa gartay macallimiinta ingiriiska soo martay macalinka isleedahay waa macalinka ugu fiicnaa Liverpool kii wajig ma ismaayo shay dhowr macallin soo martay Kenny Dalglish maya ninkan waa Isbaanyool Tabure Rafael Benitez sifa Benitez macallin oo aad mactaba soo kale Ferguson soo maray Manchester Wenger macallin odagi oo Manchester United soo Ferguson discipline laacab kaadi oo disciplineka oo asaga disciplinkiisa aad ku adkayso waxa waay garoonka si fiican ninkan si fiican ciyaari وكذا full authority was أصلا لو حسبته صار هو قسمه كله لكن هذا ضبط قسمه كله يا هذا دائرة عن اللاعب وقتنا وكواحد ضباب إلى أنا أول فريسنا كان كواحد الحين كله أنا نقول يعني مكايلة واقرتي ومعلنك معناه وجيتك ومعلنك إن أود بحد رسيه full معلنك هذا أود سيني هذا ما عياريش صومالي وحب لا يكون أنا بربيري هني بربيري أوتي وحنا وأنا كل شيء قصدت أنا مجرد هذا ما أنا وياما أنا بقول سفع إن هذا ريال كإنجلان بريمير ليغا ما دام يوكي أكاديميت معلومه إن أودي كوحة وحي سوقتي في لبضة كوحة ليفربول سيتي سيتي أنا وقتها لبضة سنة صار في ريال كقولي سنيسي ليفربول حديدا الأوجر تاني ريال كان إهانته تاني يكون سجال بقول سجاشنك أو مدة ليلة أقول بيس بس لا هاي كلوب يميلشي ليفربول سنة كان ريالك سيتي يكلين كران ما يله صوته تانا إن كان معنا غوارديولا وحقا بقى إلا الشن اللي حقفات وهو اللي بيقولوا عيال وليود وقضي على وكرتش نعمل كده يعني بلون هرقص عيال بس هو عيال جيران لكن وهي كانان وكرتش نعمل نينكو قادة حتى عيقوا وطنيقها وقاكو قادة وحربا وتشاوروا في الأمر وحربا وحربا إلا تشاوروا هدي نينكاس وحو يديها نينكاس تنقاطو محا كيري كرام ماغا ويحيا توقفي عيان هذا لا حاجة ويشتا الدنيا الحاجة لاعب كارتو تدا كذا كارتو هذا هني هذا برشلونة وحيسو شاقر مثلا برشلونة هدي ما انت هدي يدي يعني حيسو شاقر مثلا بروني هاستا marka laga qaado soo qaata gol la dhimi sadii
بروني هستا أنت هاي السكرتين سفعا بروني هذا هستا أصله أشوف هذا ما أمرك واحد هذا ما أمرك marka marka laga laga qaadana البرنس ku socoshay بروني oo cayar nin ordaa leela mugdi waa awoodda hada بروني hees karta nin ordaa oo heli awdo sifac mar haddaa browniga haysato qolka markay galaan xalaas u soo ka soo soo alamintada weyn oo footballka laga sameeyo waxa waaye afar iyo laba dhaxal ku jirto waa marka ciyaarta ay socoto waaye ay ahaado biloto oo football playing time ay oo jumlo ka socdo wala iskuuleyna 3 against 3 2 against 5 wada waayo marka يعني هذا فين نيكليرا او برشلونه هذا باسكتس نمبر 5 wuxuu og yahay Brony intuu iman meesha uu geeyahay og yahay qofku soo gaaris position ha inuu isku filan oo isku diiday marka Brony hadda uu soo gaarin waxa qaadaya garooba taabanay marka waxa aan inaan fahmno science of football we have to understand waa gartay macallimiinta adduunyada ugu caansan waxay ciyaaraan shax kala duwan shaxda ugu fiican kubadda cagta tay ku tilmaami kartaa ma ya fiiri waxa jira Catenaccio wax la yiraahdo Talyaaniga ay keeneen difaac Catenaccio Holland ayaa uu keenay keenay marka oo ay qaadayeen Jarmal 74 waxa waaye هولندا طبعا كل جمعة طبعا كل دفاع وقت ويفز لكن كتير وفي أو حوالي 5 4 1 إيه هالقام شن هذا الحال كويس تم أفضل كده كويس وحكوا الجمعة لابد دوها وحكوا الجمعة بس حكوا الجمعة لكن شن تكابل سامر كوبولون يخلو لابد ما قلت يعني أولو تورا waxaaba ka orod badan ka daba duwa iyo treega aad u dhisay mas'uul hadda xalina fiisaysi mooga ani goolka waraysi dhanaa ma fiirsan fiisaysi wala laga dhaliyay magaca milan way la marjuha soo qaatay nima ku dhufsaday asal ahmar asu dhigay marka waxa dadka inay xoogaa isfahmaan nimankan u maleeyma inay koobka ay qaadi karaan hadda ay qoraan كان واحد راح عشان سيتي وقرتي Soomaaliya halkay u socotaa marka la eego ciyaarta kubadda cagta goormaase hiigsan doonaa inaan ka qayb galno koobka qaramada Afrika iyo koobka adduunyada oo hadda wareegiisa hore sidriqa ah hadii hadda maamulka socdo iyo shaqada socoto ay halgasho in 3 years waa maximum in 3 years or 2 years haddii maamulka hadda oo abtiyeen iyo wadaan dadka maarta hadda soo hindisay laacibinta kaleeso waxaan qabaa sanadka dambe ama sanadka xigo inay Afrika soo baxdo waa gartay macallin ugu dambeyn waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka maxaad ugu baaqaysaa ciyaartooyda kooxaha kala duwan ee dalka kuwa heerka qaran macallimiinta maamulayaasha kooxaha kala duwan ee kubadda cagta madaxda xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta wasaaradda isboortiga iyo dhammaan bahda ciyaaraha dalka waxa uu taani horta mabruuq meesha hadda aan marayno meel aad u sameeyso way teeda kale waxa la rabaa in la isku duubnaado oo hal taarkiil la lahaado Soomaaliya sidii horumar lahayd oo magaca kubadda cagta ay gaarneed maadaama ay tahay dad u qalmo oo tikniigooda iyo si u yaraan aan matqana aan gaarin iyo xataa populationka حتى وحن كلها حتى لو كستبريها تبعه لو كستبرنا بالوا marka waxaan raadinaynaa in ma xataa waalidiinta ay ku dadaalaan maartay in sameeyo sport oo si fiican goramo badan in loo sameeyo taasaan rajaynaa insha Allah ma xiriirka ugu baaqaysaa iyo baad ciyaaraha waxaan u baaqayaa in ay sidii ay meesha ay ka wadaan meesha hadda ay joogto ay ka wadaan sidii ay mataqaanaa ugu soo saari lahayd laacibin cusub oo beritoole oo ciyaarta wadanka ayna ku dadaalaan laacibinta dibadda laga dhisto annaga Soomaali waay ninka haduu Soomaaliya waa inuu ciyaar adduunyada dadku ciyaaraan dibadda ay ka jiraan ma inay joogaan Brazil dadka nashaatinka ciyaar kullu dibadda ka laga soo wadaa marka anaga waxaan u baahanahay in dadkeena aan ilaashano ninka Brazil joogo ninka Afrika joogo
ninka jooga Itaaliya in kasta oo Soomaaliya aad isdhihi karto inuu wax tari karo waddanka oo tari karo in soo qaado aad u mahadsan tahay saaxiibayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha oo aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan u mahadnaqayaa macallin waay arag sporti Xasan Xuseen Kulmiye oo dabcan u soo ciyaaray kooxihii ugu caansanaa dalkeena iyo sidoo kale xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee dalka haddana kamid ah macallimiinta xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta la shaqeeya sidoo kale waxaan mahad gaar ah leeyahay saaxiibada farsamada ee barnaamijka faaqidaada ciyaaraha sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa saaxiibkay Cabdullaahi Xasan Wiish oo qayb ka qaatay soo saaridda barnaamijka caawa aad la socoteen dhammaanteen waxaan idin leenahay sport Soomaali insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. هذا بس.